wasaaradda difaaca qaranka Turkiga ayaa warqad ay soo saartay waxay ku sheegtay tababarka gaarka ah ee la siinayo askar Soomaali ah oo tiro ahaan gaaraya 150 oo ku sugan gudaha dalkaasi maadaama khibradsiintoodu ay qayb ka tahay heshiiska dhex maray labada dowladood sida ku xusan warkan. Ciidamadan ayaa waxa ay qaadanayaan tababar gaar ah oo la siinayo ciidamada kumaandooska loo yaqaano waxaana tababarka uu bilowday 21 Diseembar 2020 haatan waxa ay joogto u qaadanayaan casharada iyo leeliyada lagu siinayo xirada ay ku sugan yihiin. Waxa aan ka hormarinaynaa tababarka qaybta kumaandooska askartan oo tiro ahaan 150 ruux oo ku sugan gudaha Turkiga lagana soo dhex xulay xoogga Soomaaliya waxaana uu tababarku u bilowday 21 Diseembar 2020 sidaasi waxa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee Turkiga. Tababarka askartan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka socda xarunta tababarka ee la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ee ku taala gobolka Isbaarta ee Koonfur Galbeed dalka Turkiga oo la dejiyay sida hadalka loo dhigay. Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa bishii Agoosto sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso ka qaybgalka ciidanka qaranka Soomaaliya oo tiro ahaan lagu qadaray 15,000 ilaa 16,000 ruux una dusha saartay in 3 meelood meel ay tababar iyo taageero siinayaan.